السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمانتين آدياني سلامية هل كان دقدا ونيسان و VIP عجيب iyo walaalkiin ilka case oo mar waliba niisoo gudbiya waxyaalaha ummadda dhibaataysan iyo gargaarka ummadda Soomaaliyeed waa tahay maanta waxaan ku suganahay studio-heena qaaska isla markaas inta badan aan wax ka soo gudbino waxaan nala soo xiriiray walaalkeen Ismaaciil Maxamed oo jooga magaalada Bambaasa. Ismaaciil waa wiil Soomaaliyeed oo isla markaas reer laha aaba aha shaqaysanay in muddo wuxuu ahaa nin reerkiisa ku filan nin shaqadiisa ku filan isla mar ahaantaasina waxa uu galay accident asagoo waliba gaari wada ayuu gaarigii isla markaas shil la galay kabacdi waxa dhibaato ka soo gaartay lugta isla markaas lugta ayaa burburtay kadibna qaliin ayaa lagu sameeyay walaalkeen markii qaliinka lagu sameeyay kabacdi waxa ku dhacay lugtii in bir la geliyo aad ay u xanuunsaday dhibaato fara badan ayuu maray haddaba anaga oo taas ka duuleena ayuu nala soo xiriiray balse walaalkeen muunaysan wax ka soo gudbiya ama fariin ka soo gudbiya oo ummadda u gudbiya asoo u baahnaa garabka ummadda Soomaaliyeed waxaan go'aansanay sida ay nagu qaadataba anaga maana gaari karin waqtiyadan oo cariiri ah inaan tagno magaalada Bambaasa asaga wuxuu ku sugnaa magaalada Bambaasa qaasatan xaafadda loo yaqaano Kambeni waatahay waxaan la xiriirnay dhalinyaro isla markaas kuwa filimada duuba YouTuberleyda ah isla markaas aan iska naqaano magaalada Bambaasa waxaan la xiriirnay YouTuberka caanka ee loo yaqaano Flavor Mr Flavor oo garanaysan asaga ayaa soo wareystay oo gurigiisa ku booqday balse kaliibka inta badan waad arki doontaan muuqaalkiisa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shanta Soomaali maanta waxa soo booqnay walaalkeena oo Soomaaliyeed oo accident gali waxa la leeyahay in safar ma Kenya wax lagu qaban karo in dibadda loo qaado India meelaha dibadda waa qaraamo aad u badan Kenya operation baa lagu sameeyay operationkii إلهي ما قدر ويا يعني كقول سواين حنونكي بعياسي زيادة بريشن قال يقول لي بربا قليان سيدا شقاين هذا حلالي هاي انتي ان لبوق هذا هاي الحق بالو باهي هاي سفرتاس مليون ايشان بقلبي شقاين يعني قيمة غيران إن شاء الله وحال روا 1.5 مليون إن إنديا لقيو نبركيس هو سانسارا بدك حكالمين ولا الكينا أو ديواتو أكسدنت قال إن شاء الله واتهاي أن ودعوتين dabcan saan u qeyroodaad u qeyrateen idinka dhan dhamaantan nadana qeyrada wayna wada taabatay waxa isla markaasi xiriir toos ah inkastoo uu ii sheegay inuu ku qaadatay muddo inuu helo aniga shakhsiyan ilka casa ilana soo xiriiro walaalkeen waan wada hadalnay haddaba hadalkiina dhaxmaray iyo wixii garab aan u qaban karay aniga waxay ahaayeen in ummadda Soomaaliyeed u soo gudbiyo oo idinkani hor keeno waa tahay waxaan kaleeto aan u ballan qaaday oo ballan u sameeyay oo ah in videogan aan ka duubo maadaama isla joogin waxaan jeclaystay inaan idinkana dhagihiina ku maqashaan oo aan niiwaco isla markaasina sidoo yahay xaaladiisa aad maqashaan waa tahay waxaan ka wici doonaa lambarka WhatsApp-ka ah waxaana isla mar ahaantaasina sameyn doonaa si toos ah inaad codkiisa u maqashaan isla markaasina lambarkiisa WhatsApp-ka ah aan kala hadalno isla markaasina asaga iska warbixiyo balaan wada waa tahay si toos ah qadka waxa ugu jira walaalkeen Ismaaciil Maxamed oo si toos ah haatan ugu jira Ismaaciil may maqashaan وانكم مقلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إسماعيلو وانكم مقلا عدك أنا كمان بير عدك أنا عاد بيا قديري هاي. وان قرنا إنه كديري هاي وان أوجهاي بس إسماعيلو وحن ربا كل بقى أنا عادي وان سلحريرني وان وضع هذلني بل وربحين جود وحناجسيسا ناوع علوك تكاسو جاري iyo dhibaatadan sidii kugu soo gaartay iyo xaaladda hadda ku sugan tahay bal nooga warbixi walaalkay
dhaawacan wuxuu iga soo gaaray iska soo baxayn ismaaciil codku ka gogaaya korna u qad gaari yar oo nolol iska leeyahay wadanay dhowr qof aan ku saarneen marka alxamdulilah waxa waa ilaahay ma iska leh صح wax dhib weyn meesha iga soo gaaray waa lugta xageeda iyo gacantii oo hadda alxamdulilah aan ka fiicanahay joogto yar iska jirta laakiin alxamdulilah ilaahay ma iska leh lugta ay u daran hadda oo waxay lugta iga gashay meel yar oo kursi yani birta meel bir ah yani lugta iga gashay oo laftii baabanaanka u soo baxday alxamdulilah waxa la igeeyay isbitaal qalin baa lagu sameeyay meesha unba hagaajinana dhaheen aan ka hagaajinayna laakiin waxa waaye waa qalinkii markii la qalay qolo kukuya ah qashay oo isbitaalka ku leedahay qalinkii waa birbay geliyeen lugta birba laga geliyay xanuun aad iyo aad maan dareemayaa liana way meeshan ku guuleysanin wax ay hagaajiyeen malahan xanuun baa igu sii ziyaaday alxamdulilah rabbil caalamiin hadda waxaan ku suganaa meel la dhaho Kembeni oo Mombasa ku taalo oo Kembeni la dhaho oo Soomaalida aad ugu yar tahay alxamdulilah ilaahay ma hadis kale ayar baan marna kale ilaahay baan ugu dinaa insha Allah taala waa tahay walaalkay oo Ismaaciilow bal qaliinka aad martay dhibaatada hadda ku sugan tahay lugta maxay qaliinkii ku dhahan aan jira waa dadkii halkan wax looga qaban karo yani qaabka meeshii ay ka qaleen meesha laga qalay waa dhanka ciribta ilaa iyo jilibka korkeeda marka waxay dhaheen dhinaca geeska dhinacan oo baaf yani geeska in laga qalay ay dhaheen laakiin dhinaca ka taabteen waa meeshii seeda dhahan Soomaalida seeda laga qalay marka ma ha seeda laga qalay marka seeda inay ka taabtaan meesan ahayn jabka waxa waaye marka lugta ay jabtay bir la gelinayay waxay dhinacan kale inay ka qalaan marka seeda iga taabteen lugta aad bay u yaraatay zaid waa aragtay ma istaagi kari fadhi waa dhibaan ku qabaa istaagi dhibaan ku qabaa yani wax ma qabsan karo oo hadda nin family leh oo caruur leh aan ahay oo reer leh waata imsa caruur leeda hadda waxa ii joogta had mid uurka ku jira iyo 3 caruur 3 wiil iyo mid had gabadho culus waata bal ka waran xaaladii familkii aad u dhaqdhaqaaqaysay adigaas aad macnaha wax walba u ahayd hadda xaaladooda waase wallahi hadda qol yar baan hadda ku aruurnay oo hal qol baan hadda deganahay oo masquushiisa iyo jikadii iyo wax dhan hadda jikadii wax dhan qolkaas qol isku ah waa qol iyo masquushiisa kaliya hal qol aan deganahay sax oo cariiri nagu ah laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin oo kirada xataa ma awoodi waa lacag aad u yar oo $40 camal qolka waxaana meeshan aan Kembeni soo degay waxay tahay waa yani guryaha halkan raqiis ah dhinacan kale xagga qaali halkan caafimaad iyo dhakhtar ahaan markii la dhaho oo magaalada la aadayna wallahi wax tarsibood yani wax aan awood aan ku tagno isbitaalkii male hadda waa umada waxa intii muslim ah oo leeyahay ah oo ehelka ah oo dhibkii u arkeen oo kalmeeyeen alxamdulilah way kalmeeyeen inta xigtana waxay ugu dhaheen walaalahaaga u qaylo dhaami yana arin yar maaha waa arin aad u culus hadda gabadha taa waxa way aad bay ugu daashay inkastoo gabadha aan qabo oo Soomaali aysan ahayn oo ilaahan waaye dadkan carabtaan waaye waa tahay waxaan weydiinayaa inay leedahay guriga hooyadaan aada oo wankaa tagaya ku leedahay qof culus waaye oo ilmo la haysta arin aad u culus waaye yani arinkaa ku sugana waa kaa tagaya miya ku leedahay ya waan ka tagaya leedahay ana hadda ma ogtahay waxay tiri yani waa Soomaali wana saidiyaan yani Soomaalida aad isku caawisa walaalaha inaan u dhaqayn dhaamisid yani dhaxda ka tagtid waxaan dhahnay Kenya jooga Soomaali ma joogi sidee u dhaxgalaya walaalahayga oo yaan u tagaya
إذا هذا مله وان كاتي قايا لذا أنا حواي وحيا كو أتكاذي دمرك وحواي هاي مركتاي وحي وباهن تاي يعني لما صدق الوقت وكرسته ولادو يعني كذا رقاقه مربو wax u keeno adduunka dhaqdhaqaaq lahayn oo sareel fadhiya waxa waa aad u listahay walaalaheeda wax ka keenay jireen oo hadda labada qof kuween waxa waa Soomaaliya waxay jireen baahida buk badan iyo baahi badan oo isku dhibsadaa marka waxa waa ay dhahayn macquul ay ka soo tagba iskaga soo tag